wasaaradda xanaanada xoolaha ee dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa ay deegaamada gobolka Saraare bilihii la soo dhaafayba ka waday olole ballaaran oo ay ku doonayso inay ku caafimaadiso xoolaha isla markaasina lagu sameynayo barnaamijyo isugu jira tallaal iyo daaweyn dhinaca caafimaadka xoolaha barnaamijyadan caafimaadinta xoolaha oo ay fulinayaan tiimam kala duwan oo ka howlgalaya guud ahaan deegaamada gobolka Saraar ayaa waxa ka warbixiyay ujeedada Dr. Yusuf Yacko oo kamid ah mas'uuliyiinta tiimamka ka howlgalaya barnaamijkan caafimaadinta xoolaha ee gobolka Saraar waxaana uu tilmaamay in ku talagalka guud ee la doonayo in lagu tallaalo inta walaalahani socdo kor ay ka badan tahay 78,000 oo isugu jira halkan waxa xoola ka daaweynaya tiim ka socda wasaaradda xanaanada xoolaha tiimkaas muddo bil iyo dheeraad ah ayuu wareegayay tuulooyinka iyo daabiyadaha uu ka kooban yahay gobolka Saraar maanta waxaan daaweynaynaa ilaa 10 reer oo meel wada degan iyo xoolahoodii geeloodii arigoodii dhex jira oo daweynaya waxaa laga daweynayaa xoolahaas shilin sulan qufac wasaaradda xanaanada xoolaha ee gobolka Saraar Cismaan Xaaji Abakar ayaa isaguna u mahadnaqay wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland iyo tiimkan fulinaya hawshan oo ku tilmaamay inay si firfircoon hawshan u qabteen intii ay hawshan socotay waxa weyn halkan isugu nimeen xoolaha ku daweynay anigoo ahaa sidwihii gobolka Saraar in waxaan u sheegaynaa dadweynaha reer Saraareed waxaan u sheegaynaa dawooyin ay isticmaalaan reer miyiga oo ka dhigtaan dan ay xoolahooda ku daweeyaan si ay uga badbaadiyaan cudurrada dawooyinkaas waa ka mamnuuc in xoolo loo isticmaalo oo waa in la mamnuuc tahay ayaad u sheegaysaan waxaan kaloo idin sheegayaa marka xoolihiina cudur ku dhaco waxa weeye warbixin soo siiya gobolka aynaba noo kaalaya ama fariin noo soo dira ama halkii aad joogtaan waxa loo baahan yahay inaad warbixin soo dirtaan oo dhaqaatiirta xoolaha daweynaysa aad soo gaarsiisaan si iyaguna ay idinku baayo doonaan wixii dawo ahaayee ma garanaysa u baahnaayeen gudoomiyaha degmada Xasan Saciid Saad Xasan Bariise ayaa isaguna u mahadnaqay tiimkan fulinaya barnaamijkan lagu caafimaadinayo xoolaha oo ku tilmaamay inay shaqadooda u guteen intii ay gobolka joogeen si hufan sidoo kalena qaar kamid ah xoolo dhaqatada kala duwan ee gobolka Saraar iyagu xoolahooda loogu sameeyay barnaamijyadan isugu jira tallaal iyo daaweynta ayaa waxay si weyn u soo dhaweeyeen barnaamijkan xoolahooda lagu caafimaad waxaana ay wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland ay ka codsadeen in la sii wado barnaamijkan oo ay ku tilmaameen inuu faa'iido weyn u yahay xoolaha Ilaahay wa barakaat waxaan u mahadnaqaynaa Ilaahay baa mahad leh wasaaradda xoolaha iyo wasiirka xanaanada xoolaha waan u mahadnaqaynaa inta kadib wasaaraddu waxay noo daweysay xoolo fara badan way cudurro badan ka daweysay jabtida caalka bahalka istubirka la yiraaho haddii ay xugmaayo shilinta si kastaba ha ahaatee barnaamijyadan ballaaran ee wax laga qabanayo caafimaadinta dhinaca xoolaha ayaa waxay qayb ka tahay siyaasadda guud ee xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka leedahay caafimaadinta dhinaca xoolaha maadaama guud ahaan dhaqaalaha dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku xiran yahay xoolaha nool